السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمانتي. waxaan rabaa laba arrimood inaan ka hadlo maanta. laba arrimood qura oo yaryar oo kooban baan ka hadlaya igana gaarsiiyo qof kasta oo ay khusayso. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa hashu maankayga gadee ma masaar bay laqda. Horta bishaaro baanday wariyay kama hadla way xidhnayd. waxaana islahaa dalkeedii bay ku xidhanto dadkeedii bay dhex joogtaayo waa la iska soo deynayaayo waa in yaro uun adigu maxay ahayd banishment ah yana kibir jabin. laakiin waxaan maqlayaa in maalin walba maxkamadda la keeno markii xul loo dambi loo waayay in la celiyo uun. horta waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland bishaaro baanday ha la soo daayo bilaa shuruud ha lagu soo daayo. dadkii maanta waa kacsan yahay, reerkii waa kacsan yahay, ilaa dhalinyara kacsan, kuwa hore buurta galay oo doorasho u galay, kuwana deediye ka daba gelineed inantaa iska soo daayay. hablu wax lagu xifaalto ma midda kale Soomaalidu waxa ku oran maahmaahay jirtay odayaashii geela lahaan jiray adeerada ah waxa oran jireen godobi gabadh iyo geel bay ka dhalataa. xagga geelan la iska maro xagga dumarka la iska maro. taasi waa taa. inan kale ayaamaha bacabanaysa arkay darajo la yahdo meelaha riwaayada matali jirto meelahan ururdi jirtay oo hawlaheeda iska wadatay oo iyana cabanaysa marka anigu waxay u cabanaysaa taas garan maayo. cajalad bayna dhageysiisay wayna Muuse Biixi bay eriyanaysa bay tiri. dee horta hadday burco yimaadeenna waa problem ba. hadday burco joogaanna waa problem. mid baan say idiin sheegaya anigu inantaa markaan dhageystay had iyo jeer waxaan jecelahay inaan xaqa ku dhawaado because aniga god yar bay ka dambeeya cidna iga cilmayso hadhuuto adaabta iyo xisaabaha. gabadha markaan dhageystay codkeeda ina Muuse Biixi wuxuu ekaa cod qof inantan u ballan qaaday uu taleefanka qaban waayay ama uu jaray ayaan u arkay anigu qof wax diiday iyo kaale qof yiri toona ma arkeen. laakiin colaad waxay sheeko waxay ahayd wuu iga qaban waayay walaal taleefankii wuu iga baba waa kan tayba waa laga qaban waayay kara ha dhacay waa loo jari karo qof bilaadana. taasi waa taa. marka inanta hadda tiri dagaalama oo buurta korayba nagu gabay bay iyadu halka la soo fadhiisatayba wixii horeba bixi gabay bay la soo fadhiisatay dagaalamay oo dalka dib u xoreeya. naayna xoreyn kari mayna mar baan xoreyno tabcaan baan nahayo ilaa baan ku dhartay inaan cidina is dhaqaajin karayna qof walba tiisi uu tabcaan la yahay iska soo dugo. inanta hadii laga gardaran yahay dawladay inanta hataa ka gardarantiina dee inanta ama siiya dhulka iska xaabtee. dee hadday idinka gardaran tahay waa reer kale ka dhashayo hadday la habli hada wada qaaqlayaan waa problem. heed rag ila amsay habli la qaaqda quraan waa nacebahay dumarka qaaqlaya rag ka hormara xidha iyada lafteeda jeel ka dhiga. waa hadday gardaran tahay dee hadday gardarnayna dee xaqeeda u doona. waa idin salaamaya dhamaantiin. adduunkooda anigu dulmigaan u nebcahaybe waa idin salaama.